بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين أمور الدنيا والدين وأحسن وقتاً شابتر كشنات إنه كشكين إنه كمبيوتر ندوغا شابتر كشنات واحد كشكين تون هدي لهاي هذا حلو يقانو introducing wide area network هردع كوسابسن أما إسبراشو كوسابسن وحلو يقانو wide area network هدينا مقالنا network وحنو سوق القيبين قيبو سيدي عشرة دي هوران كوسو شيغيني وحوو سيو حلو يقانا لان waxaa ku xigay man saddexda ugu waaweyn baan sheegaya waxaa ku xiga wan lan waa sida hal dhismo keliyata networka like one building ka fargareeya waxa loo yaqaana lan city waxaa ka fargareeya networka ka fargareeya waxa loo yaqaana man adduunka dhan ama continent level waxaa ka fargareeyana waxa loo yaqaana one area network baa loo yaqaana marka isaga waxa loo soo qaataa tusaale ahaan internetka ayaa loo soo qaataa example ahaan aan hore uga socdo waxaan baranaynaa markaasi one connection types noocyada one connection can generally be classified into three types saddex qaybood ama three categories aan idhaha saddex qaybood baa loo kala saaraa mid loo yaqaano leased ama dedicated leased line in cable laga soo qaado shirkadda HQ-ga oo la soo gaarsiiyo customerska waxa jira wax loo yaqaano customer premises equipment marka la ka hadli doona oo ah end userku halka uu connectionkiisu ka bilowdo ama halka uu company-ga connectionkiisu ku dhamaado marka leased line ayaan baran doonaa waxaan baran doonaa wax loo yaqaan circuit switched connection iyo ama packet switching connection mid sad loo kala yaqaan marka maxaa isku xidhi doona leased line ku kan noqon doona circuit switching ku wuxuu noqon doona iyo packet switching ku protocol kale oo ATM iyo frame relay iyo waxyaabaha si ka mid yihiin aan hore uga socdo ka koobaad leased line ka u imaado kani waxa weeye company-gii kan waxaad ka soo qaadanayno HQ-gii company-ga HQ-ga company-gu hadduu rabo inuu company kale network kala gaarsiiyo ama another branch uu leeyahay tusaale ahaan egas branch loo yaqaano for instance haddii loo yaqaano egas branch waxaa isku xidhay wax loo yaqaano leased line marka leased line-ku waxa weeye waa connection u dhexeeya interconnection u dhexeeya two sides this logical connection may be physical connection through service facilities or telephone company ayuu noqon karaa mid circuit switch aan idhaahda mid wuxuu noqon karaa physical connection in cable laga qaado halkan oo halkaa la geeyo ama wuxuu noqon karaa mid kale telephone connection oo loo yaqaano center office kusoo xidhiidhinaya marka dedicated wax laga wadaa waa mid adiga kuu gaara oo labadooda isku kaa xidhaya adiga waa cable adiga kuu jiidaya tusaale ahaan xarunta shirkadda isgaarsiinta ee kah waxaan usoo qaataa waa company-ga mustaqbalka asaasi doono ayaa loo yaqaanaa kah training center ayaa iminka jira marka kah company ama kah telecommunication baa beri dhow bilaabmi doona marka wuxuu yeelan doonaa for example xarumihiisa guud wax isku xidhiidhiya oo leased dedication line ayuu noqon doonaa tusaale ahaan kaasoo kale tusaale soo qaadanay waxaan u imanaynaa wax loo yaqaano circuit switchingka sidiisaba packet iyo circuit kale leh circuit haddaynu maqalno waa wixii voice la xidhiidha haddaynu maqalno voice ayuu la xidhiidhaa circuitku packetkuna wuxuu la xidhiidhaa wixii data ayuu la xidhiidhaa marka connection that is bring up as a needed basis waa connection sida loo baahanyahay u shaqeynaya marka infact waxaan soo qaadanaynaa telephoniskii iyo waxyaabahaasaan soo qaadanaynaa sida ku establish karaysmaya dialis appkii iyo waxyaabahaas oo dhani wuxuu marayaa voice-ka iyo datada waxaa jira wax loo yaqaano quality of services marka quality of serviceska hadday voice data tusaale ahaan video voice-ki iyo data tagas baan ka wadnaa marka halka kan tagas baan ka wadnaa iyo video hadday meel iskugu yimaadaan yaa priority-ga la siinaya kaasaa waxaa la siinaya priority 1 priority-yada kuwan kalena waxaa loogu eegayaa datada nooca ay yihiin hadduu fileku yaryahay kan waa la hortuuraya
videoga hadduu badan yahay waa la dambeysiinaya, hadduu videogu more important yahay isaga la horeysiinaya. marka waxaa jira voice wax loo yaqaano quality of services, tayada hadday madaxweynihii, wasiir, ambulance iyo ay meel wada yimaadaan, for example traafigii caadiga ah baabuurtu yaa la horeysiinaya wadada hor isticmaalaya. ma madaxweynaha loo xidhayaa, ma ambulance-ka loo xidhayaa, mise cid kale? okay, haddaba waxaynu soo qaadanaynaa voice communication aan soo qaadanayna sorry circuit switchga soo qaadanaynaa wax loo yaqaano integrated service digital network, ISDN baa la yidhaahdaa. ISDN wax kale maaha, waxaas la sameynaya wax loo yaqaano virtual circuit, adiga gurigaaga imanaya. virtual circuitkaasi sidiisaba haddaynu maqalno ISP, haddaynu noqono ISDN ka haddaan maqalno, wuxuu wadaa both voice iyo data lafteeda oo la dhex mari karaa. marka mar dhow waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano guryaheena inta badan xoog ugu isticmaalno oo shirkadu inoo keenaan router yar oo naqan oo sim card ku jiro, oo tusaale ahaan lagu soo xidhiidhinayo dabka aad gashanaysid, kadib dabka markaad gashatid daytadii wifi-ga ku bixinaya. si kale haddaan idhaahdo line baa lasoo geliya guryaha, telephone line boortiga kale lagu leeyahay, adu internetka boortiga ka qaadaa lagu leeyahay. boortigaasi routerkaaga internet ku xidho, boortiga kalena waxa ku xidhmaya tusaale ahaan telephone baa ku xidhmaya, sorry waxa ku xidhmaya telephone buu ahaaba waxba waxa ku xidhmaya markaasi dhinaca kalena hal boort buu leeyahay oo internet ama modem ka waxa loo yaqaanaa markaasi oo inta badan ku dul qoran ADSL ayaa ku dul qoran. midhow baan ka hadli doonaa. marka ISDN network waa kaas, waa wixii telephones ayuu la xidhiidhaa oo connection kaasi loo yaqaano virtual circuit ayuu noqonaya. packet switching waxa markii maskaxda kusoo dhacaysa mar hore sheegay wixii packet ah. marka packet switching waxa weeyaan kambaniyadu waxay ku kala duwan yihiin data nooca ay transfer gareynayaan. for example haddaan internet transfer gareynayno connection baan u baahanay. haddeen rabno tusaale ahaan data center ay halkan inoo tahay, halkana data center imka terminolojiyada ni dhow ay cusub yihiin. data center tana data center inoo ah sorry data center si weeyaan halkani data center inoo ah, tanina waa data centerka brancheskoodii ka soo qaad brancheskoodii iyadoo internet connection haysto kan internetkii yahay ayaa for example waxaan dhex marinayna wax loo yaqaano frame relay connection. si kale haddaan idhaahdo haddaan doono satellite paced baan ka dhiganaa, kani wuxuu noqon karaa markaasi satellite ayuu noqon karaa. marka frame relay waxa weeye waa network allows multi customers to connect to service provider network, cidda adeega bixinaysa kusoo xidhmaya through phase isagoo soo maraya wax loo yaqaano virtual circuit. waxa weeyaan mid waliba wuxuu yeelanayaa logically connection kambaniga iyo isaga isku xidhiidhinaya. waa dedicated connection kaas yeelanaya, kanina wuxuu yeelanaya dedicated connection isagana u gaara. for example labadan dhinacoodana iyaguna connection gaara yeelanaya, waa dedicated connection. sorry kana sidoo kale xaggan ka yeelanaya. si kale haddaan idhaahdo waa logical interconnection customer siteski interconnection isku xidhiidhsmaya weyn. aan hore ku taabsiiye markaasi data rate-kooda xawaarahooda sidoo kala duwan yihiin. frame relay haddaynu maqalo wuxuu qaadi karaa maximum 1.5 megabit per second buu qaadi karaa. T1 iyo T2 baa jira, sorry T1 iyo T3 baa jira oo iyaguna data rate-koodu kuwan imika xoog looma isticmaalo, it's not mostly use. dhinaca haddii laga eego kombaniyada gudahooga laga isticmaalaa. marka haddaynu maqalno T1 iyo T3 haddaynu maqalno inta badan waa American standard, halka European standardkuna E1 u yaqaano. E1kuna wuxuu qaadaa sidiisaba 32 line buu ka kooban yahay. marka laba la tuuraa 30 la soo qaataa, labada sababa loo tuuraa imika hadda waqtigeedii ma joogno. wuxuu qaadi karaa 2.048 megabit per second E1ku. E3 haddaynu maqlana wuxuu qaadi karaa 34 megabit per second. marka dhinac marka laga eego waxa ka xawaaro badan sidoo kale T3ga waa Americanka, kanina waxa weeyaan waa European.
ATM baa jira. ATM-ku hadda kii lacagta lagala baxayay maaha, laakiin ATM waxa loo soo gaabiyaa wax loo yaqaano asynchronous transfer mode ayaa loo soo gaabiyaa, kaasaa la yidhahdaa ATM. laakiin maaha maxaa loo yaqaanaa taylorkii lacagaha lagala baxayay maaha. isna waa connectionkiisuna 155 megabit per second ayuu qaadaa. aad buu xawaariisu badan yahay, ilaa 622 megabit per second. Sonet baa jira isna sidoo kale dhanka fiberka la xidhiidha, isna 51 megabit per second buu qaadaa kategorigiisa koobaad. kiisa labaad iyo standardu isaga laftiisu leeyahay wuxuu qaadaa ilaa iyo gigabytes 156 gigabyte. aad buu badan yahay. 159 aan dhaahdo gigabyte ayuu qaadi karaa, marka xawaare aad u fara badan. isagoo kale waa fiber, that's why uu xawaarihiisu aad ka ugu badan yahay. kuwan kale isagoo waa logical connections